dhirta qaare ee shinnidu suuru ka dhaha aansatiya dhagax maala ab ku jira dhayalagu uma helo dhibyaraan wi ilashana dhayalagu maran inadeerdho oo haneeyaan wax kada adhaxsheeda wixiyo oo jiradanka uma dhaay ikarehe culimada haddii aan ku bilaabo xubinta falaqaynta heesaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf birjaax oo ah fannaan ku soo caanbaxay sanadkiina dhaafay ee 2021kii silsiladii caanbaxday ee jecel dhiigga ku dhex nool taas oo ay foodda isku dareen hablo badan silsiladaas oo ahayd mid jecel dhaqankana xoojinaysay ayuu birjaax iiga warramay ujeeddada ay daarneed xilli aan ku waraystay qadka online-ka isagoo oo jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda. Xuseen aad baan ku salaamayaa sidaad barnaamijka iigu casuuntay adiga iyo bahda Radio Ergo dhamaantiin si kale laabaan idin salaamayaa. Marka xigtay magacayga oo saddexan waxa la yiraahdaa Yuusuf Weli Geele. Waxaan ku magac dheerahay Yuusuf Birjaax oo bulshadu i taqaanaa. Birjaaxow waxaad inala wadaagtaa sida fankaaga uu ku bilowday. Fankaygu wuxuu ku bilowday horta marka hore anigu waxaan ku dhex jiray koox xafaneedyo hadba meeshii aan joogo ilaa oo markii dambe anigu aan codkayga aan bulshada maqashiyo marka fankaygu aniga saas ku bilowday. Ma qoys faneed baa ka soo jeeda ma wax kaliya ku gaar ah adiga hobigaaga ma jacaylkaaga ahaa bal arrinta nala wadaag. Maya aniga qoyskaygu qoys faneed ma aha aniguna fanka markii hore hobigaygu wuxuu ahaa maansooyinka ama gabayada ama heeso ama dhaantooyin ha noqotee qaybaha gubaabada bulshada ee bulshada in la gubaabayo in khayraadkoodii iyo dalkoodii iyo nimcada iyo saliidda hodanka ee dalkooda ay ka faa'iideystaan waxyaabaha noocaas ah inay bulshadu gumaysi aqbalin waxyaabaha noocaas ah ayaan jeclaa oo iyo ummadnimada in loo fikiro. qaybta si gaar ah adigu aad fanka uga jirto aad ku xoogan tahay haddaad nala wadaagto. fanku wuu iska qayb badan yahay gabayaa buu leeyahay waxyaabo fara badan buu leeyahay heesa ayuu leeyahay laakiin anigu waxaan ahay hobal dhaantooyinka caan ku ah laakiin anigu hal abuur gabayaa oo wax curiye ma ihi. waaye Yuusuf oo sanadkii la soo dhaafay waxaad aad uga dhex muuqanaysay silsilad hees ahayd oo magaceedu ahaa jecel dhiig ku nool haddaad noo sharaxdo qeysada iyo ujeedada silsilada. Xuseen marka hore waxaan salaamayaa dhammaan abwaaniintii iyo fanaaniintii ka qayb qaatay silsiladii jacayl dhiigga ku nool si gaar ah waxaan u salaamayaa abwaankayga Cabdiraxmaan Siciid oo isagu ahaa abwaankii curiyay maansooyinkii aan kaga qayb qaatay dhaantadii jacayl dhiigga ku nool. silsilada jacayl dhiigga ku nool waxay ku bilaabatay gabadh la yiraahdo Monabilan oo joogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gabadhaas ayaa dhaanta jacayl ah oo aniga igu socota soo qaaday ilana wadaagtay oo tiri dhaantadaas ayaan soo wadaa. dhaantadii markay soo baxdayna wixii aniga markaa ila qumanaa baan kaga jawaabay. marka ma waxaad jilaysan bay ahayd mase waxay aheeday xiriir labadiina dhexdiina markaa wax ku saabsanaa? maya Xuseen oo xiriir jacayl ma jirin laakiin gabadhu waxay ugu tala gashay maaweelo bulsho dhaantadii qaabka ay u soo qaaday maaragtay jacaylka ahayd qayb ka bedelan baan anagu ugu jawaabay oo anigu sidaa markii ila qumanayd ahay saasi ku bilaabatay. dhaantadaas horta waxay noqotay dhaantada ugu fuca weyn silsiladihii Soomaaliyeed ee soo maray sidaan filayo inta badan. waxaa laga sameeyay 27 maanso ama dhaanto gabdho iyo wiilal fara badan bulshada qofba si ayuu u fasirtay laakiin qaybta dumarka maadaama anigu waxaan u jawaabayay gabadh ahayd dumarka ayaa maaragtay xamaasad fara badan dhaliyay oo qaar fara badan qaar soo aflagaadeynaya qaar dhahaya maaragtay qaabba si fara badan ay uga jawaabayaan marka taas aniga maaragtay waxyaabo fara badan baan xagga dumarka kala kulmay kulli qaar guubaabiyayna waan arkay oo si fiican baad samaysay. qaybta aad ku lahayd ee dumarku ay kugu qoonsadeen ee sababtay in dumar badan ay kuu soo jawaabaan haddii aad nala wadaagto bayt ka mid ah. waxaan ka xasuustaa maansadii ugu horreysay oon kaga qayb qaatay dhirta qaare ee shinnidu suuru ka dhaha aansatiya dhagax maala ab ku jira dhayalagu uma helo dhibyaraan wi ilashana dhayalagu maran. beydkaasoo kalaa ka mid ahaa oo dhaantadii ugu horreysay aan ka qayb qaatay. inadeerdho oo haneeyaan wax kada adhaxsheeda wixiyo oo jiradanka uma dhaay ikarehe culimada
adhibi ubawaku irtaqaare heshiniidu surkada ansatiyo dhayahmala habku jira dhayalagu kuma helo dhibyarawi indhashana dhayalagu mara duulan eleemeeluda ansatay dhowreeno oo cidlaada lagu siiyey hidhixiyo ha ku dhima hanmunahay dhexdahaysata dadka lama hadhibaadhawti ruuxa ankuraabin loma soodha hashadeehe wajigoka hadhintiyo dhaabanada ilmaadayay ku noqon dharbaan dadka lama hadhibaadhawti ruuxa ankuraabin loma soodha hashadeehe wajigoka hadhintiyo dhaabanada ilmaadayay ku noqon dharbaan wax kasto oo ku dhiba udhiga aan jacayl dharbaxeeda ajinkuwa way ku dhaara han rugtaa dhaxantiyo oo cidlaadayaan dhurwaha kocoy inadeerdho oo aneedan wax kadha adhacshe dhaawiciyo oo jiraadan kamadhaye hikareehe culimaada hadhibiwubaw ha ku dhige dadka lama hadhibaadhawti ruuxa ankuraabin loma soodha hashadeehe wajigoka hadhintiyo dhaabanada ilmaadayay ku noqon dharbaan dadka lama hadhibaadhawti ruuxa ankuraabin loma soodha hashadeehe wajigoka hadhintiyo dhaabanada ilmaadayay ku noqon dharbaan fanaaniin iyo abwaamin fara badan baa kasoo jawaabay muqdisho laga soo jawaabay kismaayo jigjiga Xuseen waxa kale oo kaga bedelay silsiladii hore silsilad shantii Soomaaliyeed ba dhalinyarada saameysay bay ahayd waxa laga soo jawaabay waqooyi bari xeebaha Soomaaliya muqdisho kismaayo jigjiga intaba si isku mid ah ayaa looga soo jawaabay marka ka sokow inay sidaas ay ahayd oo jacayl ay ku saabsaneed in arrin madadaalo loogu talagalana ay ahayd maxaa kale oo laga baran karaa ayaad isleedahay arrintaas fanku faa'iidooyin fara badan ayuu bulshada u leeyahay fankii oo la soo nooleeyay sida aad ogtahay bulshada Soomaalidu waxay u badatay qurba joog iyo dad iska magaali ah oo dhaqankii iyo erayadii naxwaha ay af Soomaaliga ka guuray marka dad fara badan bay baraarujin u tahay fankeena in la soo nooleeyo oo ummaddu waxeedii ay dhaqanka u lahayd ayna ka tagin oo wadato astaan wanaagsan weeyaan baan anigu filayaa waayahay Yuusufow bal muddadii aad fanka ku jirtay ma jiraan heesahaaga qaar ka mid ah oo qiso dhaba salka ku haya ama adiga ka hadlaya ama abwaankii sameeyay ka hadlaya ama dad kale ba uu abwaanku uga hadlayo dabcan Xuseen waxa jirta dhaanta jacayl oo nin asxaabtayda kamid ah oo gabadha xaaskiisa oo aad u jeclaa oo uu yiri hadii aan iraahdo waan ku jecelahay ama wax adduun iyo wax la mid ah gabadhii aan u keeno waxaas oo dhan kuma filla markaas sida darteed uu u baahday maanso inuu gabadhii ku raali geliyo wuxuu sameeyay marka maansadii baa loo sameeyay maansadii oo diyaarsan gabadhii oo ka warhaynin ayuu xaflad u qabtay xafladii baa deetana gabadhii si surprise looga daaray dhaantadii oo iyada ku socota oo maansadii oo diyaarsan ah maansadaas ayaa kamid ahayd min hore u taagayagayo xilligan aakhariyo aduunu miyaha ku sugan afmadoobeeyaduu kale lagu marag wax abuurano aynu aragnayo waxaan waali iimaanoon sheenu qaban axad kulamidana waali lamaasumi adiganisa waaligalayo markiiaan arka wawrka waxaan ka odhan axadii walbaba yaa aroosu dhiga oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay ayatiinkii naftahay fanawaad kuwaad oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay ayatiinkii naftahay fanawaad kuwaad
oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar abbahabaaniisa rimin jiro naasaboode ay horohood ku aroortayo abtirkaaga lahaa faraciido astaan hooyo aanin lahayn baa ku abaabiso asal baa aad u tahay eedabiyo akhlaaq udugaaga naflaha oxygen looga dhigay adiganiisayabaaligelayo markiiaan arka urka waxaan ka odhan axadii walbaba ayaa aroosu dhiga oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar oridayda ay wadnahaad ku alxaamaan tahay aayatiinkii naftahay ifkanawaad ku waar yuusuf birjeexow dhalinyaro badan ayaa maanta hoggaanka u haya fanka Soomaaliyeed bal talada ugu wanaagsan ee aad siin lahayd maxay tahay fanaaniintu horta kow inay anshaxa ilaaliyaan oo maansooyin ay soo bandhigaan dhaqankeennii ku wanaagsan oo maaragtay islaamnimada lafteeda iyo maaragtay aan waxyeelo dhaqanka islaamka suuban u geysanaynin isqaawinta oo kale inay iska daayaan sida qaldan ee loo labisanayo la iska daayo timaha oo kale la qorxiso oo si wanaagsan oo asluubaysan loo maaragtay loo jarto sida aana fanka lagu soo galo oo qofku isaga oo maaragtay akhlaaq xumo physically ayna ka muuqanin oo bulshadu ku dayan karto wax bulshada manfac u lana soo bandhigaya sidaas in fanka lagu wada ayaan aaminsanahay